ururka saxufiyiinta Soomaaliland ayaa saaka tababar uga furtay saxufiyiinta kala duwan ee ka howlgala gobolada Saaxil iyo Togdheer waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga Cumar Shacay Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Abakor sidoo kale waxa iyaguna ka soo qayb galay maamulka gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiinta degmada waxayna dhammaantood halkaasi kala hadleen saxufiyiinta ka qayb gashay tababarka isla markaana waxay ku waaniyeen in ay ka fogaadaan waxyaabaha ka hor imanaya anshaxa saxaafadda loona baahan yahay inay ku dabaqaan aqoonta ay ka faa'iideystaan tababarkan xifradooda shaqo سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirada agaasimayaasha iyo dhammaan bahda saxaafadda iyo sooca aad baan ugu mahadnaqayaa halkan marka hore waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta horumarka lagu naaloonayo haday tahay amniga iyo haday tahay saxufiyiinta waxa loo kordhinayaba uu nagu hogaaminayo wixii nagu hageeyay uu yahay aad baan ugu mahadnaqayaa horta xeer iyo wax la ansixiyo dadka qofku markuu damiir leeyahay xeerku isagoona eegin buu damiirku qabanaya waxaad moodaa maanta in jaamacadaha waddanka ka jira hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay wixii kaleba ay dadku kor u korayaan laakiin waxaad moodaa qoladii saxaafaddu inay waddanka dabada hayso على أمور الدنيا والدين marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan runtii aad u soo dhaweynayaa oo aad ugu faraxsanahay in ururka saxufiyiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Soldier ay seminaarada noocana ay tababar ugu qabato saxafiyiinta gobolka Saaxil waayo qofka saxafiga wuxuu leeyahay nidaam raaco oo saxaafadda u gudbiyo haddii uu markaa uu khalad sameeyo waa in la helaa wixii qaban lahaa haddii ay dhacdo markaa in isaga lagu tacadiyeyna waa la wada ogaanayaa qaabisay tababarkan waxaan idin soo jeedinayaa labada cisho ee tababarku socdo inaad ka faa'iideysataan casharadaana ku dhigan doontaan kale wariyaalii saxafiyiin baa tihiin aqoon badan idinkama dhina laakiin waxaa idin xusuusin doonaa maal maleynayaa etikiska saxafiga looga baahan yahay dardaarankii waxaa inoo dhameeyey maayarka iyo guddoomiyaha iyo yaxyo ka socday solja intaa iyo inta kale garanaysana baa la doonaya in ficil u bedelno anna waxaan ku dar lahaan kulle xeerka saxaafadda u jiraa anigu 6 bilood imika saxaafadda la soo shaqaynayay saaxiibo fara badan baan saxaafadda ku yeeshay waxaan ogaaday dadka saxaafadda ka shaqeeya inay dadka ugu qalbiga wanaagsan yihiin baan ogaaday orda waxaan doonayaa inaan maartay wuxuu ku saabsan yahay man malanaya maxay tahay shirkani salay sheegay oo press card distribution sama iyo role of media election waa very important waxaan u baahanay election kan waa daruuri xooga baynu yahay laakiin inaynu ka ilaalino wax kasto dhan isaga inaga muhiimsan marka haday abaar tahay haday wax kala tahayba marka waxaan u baahanay inaynu ilaalino macnaheedu waxa weeyaan asxaabta iyo isku xoqa dadka Cabdirashiid Mubarak Cabdirashiid Sool telefishinka caalamiga RTN magaalada Berbera